sidoo kale wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa ka baaqday maxkamadda oo maanta la keenayay kadib markii suxufigaasi dalbaday in lala kulansiyo qareen u dooday oo loogu geeyo xarunta CID ee magaalada Hargeysa. Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ah qareenka u doodaya Cabdimaalik Muuse Coldoon isla markaana ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland oo isku dayay inuu suxufigaasi ku booqdo xarunta CID-da ayaa taliyaha ciidamada CID-da ee Somaliland u sheegay in laga mamnuucay guud ahaan saldhigyada Somaliland in uu galo Guuleed Axmed Jaamac. Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo la hadlay idaacadda Kulmiye waxa uu sheegay inuu yahay qareenkii labaad ee loo diiday inuu difaaco Cabdimaalik Muuse Coldoon maadaama qareen Maxamed Abukar oo hore u difaacay Cabdimaalik Muuse Coldoon isna sidan oo kale loogu diiday inuu booqdo xarunta CID-da iyo saldhigyada Somaliland. Cabdimaalik 7 cisho ayaa la rumaangareeyay 18 bisha maanta hay'adda maxkamadda la keeno laakiin maxkamadda lama keenin waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay qareen inuu la aniga iyo nin qareenka Maxamed Abukar leeyahay 18 bisha aragnayna waxaan u sheegnay inuu ugu iman doono CID-da laakiin nasiib darro CID-da tagnay aniga iyo qareenkii kale labada qareen waxaan leeyahay waxa ka mamnuuc tihiin inaan soo gashaan bama xadiidaya xarumaha booliiska oo ma soo geli kartaan marka asaasay noogu soo weydaan la kulano qareen kale markaa raadinay inuu tago. Gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan Guuleed Axmed Jaamac waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay kala xulashada qareennada ee ka soo cusboonaatay Somaliland. Suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa la filayaa in maalinta bariyaha la keeno maxkamadda gobolka Hargeysa iyadoo loo qabtay qareenkii saddexaad ee difaaci doona suxufigaasi muddo 10 cisho gudahooda oo ku xidhnaa magaalada Hargeysa. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye. dhaqankaaga sayr maaha Soomaali diib maaha sida doonto yeel maaha waxa ku xukumo sharciga ku xukumaya Soomaali diib ma sida doonto yeel maaha dhulka oo ku sibi waayay samadoo la koroma hadii oo dhulkaas oo dhan ku banaayo meesha doonto maraya yaa isku day inay qabato warka kortay Cabdimaalik xarigiisa xorriyadka qaadistiisa midaan ka xumahay ina Coldoon xarigiisa xorriyadka qaadistiisa midaan ka xumahay sida doonto yeel maaha waxa ku xukumo sharciga ku xukumaya Soomaali diib ma sida doonto yeel maaha dhulka oo ku sibi waayay samadoo la koroma hadii oo dhulkaas oo dhan ku banaayo meesha doonto maraya yaa isku day inay qabato warka kortay